بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadweynaha reer Djibouti meel kastoo joogtaan waan idin salaamaya. waxaan jeclayn inaan kelmad ka celino hadallada soo noqnoqonaya ee ku saabsan qabyaaladda gaar ahaan uu ka dhawaajinayo Ismaaciil Cumar Geelle. sidaad u ogtihiin ama aad u fiirsateen waxa intan dambe uu ku celceliyaa in lala dagaalamo qabyaaladda iyo kala qaadqaadka. laakiin Ismaaciil Cumarna waxaan xasuusinaynaa ummadda reer Djiboutina waxaan xasuusinaynaa hees caruureedkii ahayd maroodi candhoole haddii col la sheego cadaadda ku meere hashii cusub waatan. ujeeddadu waxay tahay halkaad ka raadinaysid qabyaaladda iyo qoloqolada iyo kala qaadqaadka meelaha kaleed ku tilmaamaysid maaha adigu iskaga bilow inaad la dagaalanto qabyaaladda adigu iskaga bilow inaad qoloqolada iyo qurunkiyo qushaashka aad iskaga bilowda la dagaalankeega adigu iskaga bilow. laakiin haddii aad maalintii qof tahay la dagaalamaya qabyaaladda habeenkiina noqoto qof kale oo u gurguuranaya qaab qabyaaladeed waxaas wax soconaya maaha. ummadda reer Djibouti maanta meel kastay joogto dalkiyo dibaddaba way og tahay qabyaaladdu meesha ay ka soo unkanto inay adiga tahay. fikirka siyaasadeed ee ku salaysan qabyaaladda meesha uu ka soo unkabo inay adiga tahay. diyaar baan u nahay in lala dagaalamo qabyaaladda, diyaar baan u nahay in qushaashka lala dagaalamo, diyaar baan u nahay in qoloqolada iyo kala qaadqaadka lala dagaalamo. weligeena waan la dagaalamaynay, maantana waan la dagaalamaynaa, berrina waan la dagaalami doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo. laakiin sidii Siyaad Barre markii uu dhacayay haddii itaalkaagu uu noqdo afka waxaad ka leedahay iyo qalbiga waxaad ka haysid inay laba kala noqoto socon mayso. waxaa lagaaga fadhiya hadal maaha, ficil baa lagaaga fadhiyaa. waxaa lagaaga fadhiyaa sheeko maaha iyo farahood meel kale ku fiiqfiiqdid maaha. adigu isku noqo, adigu fikir, adigu isweydii qabyaaladda halkeen ka soo gala uu sheegaya Cabdiraxmaan Dhoor. markaad adigu isku fiirsatid ee dhinac walba iska joogsatid ayaad arki doontaa waxaan kuu sheegayno. ummadda reer Djiboutina way arkaysaayo way nala arkaysaa. ummadda reer Djiboutina kelmad baan odhanaynaa, ummadda inta kula joogtana kelmad baan odhanaynaa, reerkaad ka soo jeedidna kelmad baan odhanaynaa. waxaan ku bilaabayaa reerkaad ka soo jeedid waxaan leeyahay baruuriya qurmisa baan leenahay. haddii adigu salkii iyo fikirkii iyo siyaasaddii aad ku salaysay qabyaalad iyo qoloqolo reerkaad ka soo jeedid waa dadkayagii weeyaan. waxa aan u sheegaynaa in qabyaaladda aad samaynaysid iyo qurunka aad samaynaysid waa baruuriya qurmisa weeyi. waxaan garanaynaa imisaa tolkaaya oo gaajoonaysa, imisaa tolkaaya oo xaqdarri ku sugan, imisaa tolkaaya oo kaa soo horjeeda, imisaa tolkaaya oo dhibi ummadda kale siday ummadda kale u dhiban tahay u dhiban. laakiin 4 qof ood adigu mansab siisay ama ku ilaashanaysid suldadda inaad isku ilaalisid ayaa waxaanan ahayn. laakiin ummadda inteeda kale oo dhan waa ay dhiban tahay, waa ay gaajoonaysaa. ummadda reer Djibouti ayay wax la qabtaa. 4 kula joogta ee kula mansabka ee kula tolkaana waxa aan ka leeyahay isaga Ismaaciil Cumar ayaa maankiina iyo garaadkiina ayuu shaxaadayaayo reernimo iyo qabiilnimo ayuu mansab nigu siinayaa, ayuu qoriga niigu dhiibayaa, ayuu lacagta niigu dhiibayaa si aad u ilaalisaan isaga, si aad u ilaalisaan kursiga. cid boobaysa kursigana ma jirto, cid xoog kaga qaadanaysina ma jirto. meeshani waa dal weeyaan, ummad baa degan, waana loo wada siman yahay. markaas adiga Ismaaciil Cumar iyo inta kula qabta fikirka qabiilkeeda aaminsan tahayba waxaan ugu yeedhaynaa in midnimada la ilaaliyo, waxaan ugu yeedhaynaa in walaalnimada laga shaqeeyo, waxaan ugu yeedhaynaa in wanaagga laga shaqeeyo. waayo qolonimada iyo qabiilnimaduba Maxamed Siyaad Barre waxba way u tari weyday, dalal badan waxba way u tari weyday. agteenna imika Tigreegii ama Itoobiya wixii ka dhacay waxba way u tari weyday. markaas waxaa oo dhan waxa ka wanaagsan wanaagga iyo walaalnimada iyo wadajirka iyo nabadda iyo is-aaminka iyo wada noolaashaha ayaa ka muhiimsan. ummadda reer Djibouti meel kastay joogaanna waxaan u sheegaynaa in la ilaaliyo walaalnimada,
إلا إلاليو من نمدا إلا إلاليو جعيلك إلا إلاليو ودجيرك إلا إلاليو وددجناشها وايو دكتور هدان تجو سريرتي رهبل لا يمدقيو طريق هدان مرو طريقي رهبل ما مريو كوران هدي لا يسوق جلينيو كوران كي رهبل لما سوق جلينيو بيه هدي لا سوق جلينيو بيه رهبل لما سوق جلينيو عرور هدي إسكول لقريو إسكول كي رهبل مجرتو مركز waxa qabyaalada keenaya iyo qurunka keenaya iyo qushashka keenaya waxa kaliya weeyaan taliska Ismaaciil Umar Geelle oo raba inuu ummadda kala qaado anfarta Ciisaha ku jeedi Isaaqa Ciisaha ka horgee Samaroonka Ciisaha ka horgee kuwan kale ka horgee waxaas wax soconaya ma ummadda reer Djibouti waa mid weeyi wada deganaashaheena walaalnimadeena wanaageena midnimadeena qarannimadeena nabadeena ammaankeena تاسا مقدسة أو مهمة وإن أوغانو دباتة أوينة ودن كينا هدي قبيالات تاي هدي قرن تاي هدي قشاش تاي هدي كلاقات تاي هدي مسخ تاي هدي بين تاي هدي حوله الددوينة ولا دعياي تاي وإسماعيل عمر جيلي يتلس كيسا ummadda reer Djibouti meel kasto joogtaan waxaan idinku yeedhaynaa in la dagaalamo qabyaaladda in la dagaalamo qurunka in la dagaalamo kala qaadqaadka in la xoojiyo halganka in la xoojiyo nabadda in la xoojiyo midnimada qaranadu Ilaahay yiraahdo markaas ummadda reer Djibouti ciday doonto ha noqoto meeshay doonto ka soo jeedaan waa in la fahmo kala qaadqaadka iyo qurunka iyo qushashka iyo qabyaaladu halka ay ka imanayso waxaan ku soo gabagabeynayaa hees caruureedkii maroodi candhoole haddii col la sheego cadaada ku meere hashi cusub waa tan jamhuuriyadda Djibouti ha noolaato shacabka reer Djiboutina ha noolaadaan wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh